fadlan haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena YouTube-ka waxaan kaa codsanaynaa adiga oo mahadsan inaad subscribe noo saarto oo aad inagu soo biirto si aad u hesho xogaha wararka iyo macluumaadka gaarka ah ee alaab halkan aan soo gelino idinkuna saaxiibayaal waxaad aad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaaladeena iyo warbixinadeena markale soo dhawaada saaxiibayaal muuqaalkana like inoo saar si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kale ahba ay u daawadaan waxaan maanta ku bilaabayaa wararkii ugu dambeeyay ee Dhuusamareeb iyo 4 nooc doorasho oo la soo saaray miiska shirka Dhuusamareeb xilli la ogaaday midda uu rabo madaxweynaha Soomaaliya ee Farmaajo shirka magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug uga furmay madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe oo ay ka maqan yihiin maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa waxaa la soo hordhigay miiska shirkaasi ilaa iyo 4 nooc doorasho oo kala duwan kuwaas oo ay soo bandhigeen guddiga farsamada ee ka soo baarandegaya hanaanka doorashada dalka ee 2020-2021 noocyadan doorashada ayaa waxaa shirka hor keenay guddiga farsamada shirka Dhuusamareeb 3 ee ka baarandegida nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa 2020-2021 guddiga ayaa noocyadan u gudbiyay madaxweynayaasha maamul goboleedyada Hirshabeelle Koonfur Galbeed Galmudug iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyadoo ay shirka qaadaceen Axmed Madoobe iyo Saciid Dani oo kala hogaamiya maamulada Jubbaland iyo Puntland haddaba noocyada doorasho ee guddiga ay soo bandhigeen ayaa waxa ay kala yihiin 1 doorasho dadban oo la kordhiyay tirada codbixiyaasha lagana dhigo 101 ilaa 1000 taasoo ergada ay isla soo xulayaan odayaasha iyo bulshada rayidka wadajirna loo dooranayo xildhibaanada oo dhici karta koor Febraayo 2021 nooca kale ee labaad ayaa waxa uu yahay doorasho isugu jirta toos oo loola jeedo qof iyo cod iyo mid dadban oo deegaanada qaar ka dhacaysa qaar kalena loo qabanayo waxaana codeynaya dad badan oo ku dhow 1 milyan oo lagu qaban karo ilaa iyo July 2020 nooca saddexaad ee guddiga soo bandhigeen ayaa waxa uu yahay qof iyo cod oo ay codeynayaan in ka badan 3 milyan oo qof oo qaadanaysa 13 bil tala soo jeedintii guddiga farsamada ayayna ahaayeen qodobadaasi qodobka ugu dambeeya ee ay soo bandhigeen ayaa waxa uu yahay doorasho qof iyo cod oo isdiiwaangelinta iyo codeynta isla maalintaas ay dhacayso waxa ayna markaasi qaadanaysaa muddo ku siman 9 bilood ilaa iyo 12 bilood haddaba si aan wax badan uga ogaano nooca doorasho ee uu rabo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan xiriir kala duwan waxaynu la sameynay dad ku sugan ee magaalada Dhuusamareeb isla marhaantaana ku dhow madaxweynaha Soomaaliya sida warar ku dhow madaxweynaha Farmaajo ay naga soo gaarayaan magaalada Dhuusamareeb waxa ay sheegayaan wararkaasi in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku dhagan yahay nooca labaad ee ah doorasho isugu jirta toos iyo qof iyo cod iyo mid dadban oo deegaanada qaar ka dhacaysa qaar kalena loo qabanayo taasoo la sheegay inay markaasi codeyn doonaan 1 milyan oo lagu qaban karo ilaa iyo July 2020 madaxweyne Farmaajo ayaa kala dilay madaxda maamul goboleedyada waxaana hadda muuqata inuu taageero xoog leh ka haysto madaxweynayaasha Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo Galmudug oo martigelinaya shirkaasi madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo ka qaybgalkooda shirka shuruud uga dhigay in marka hore uu madaxweyne Farmaajo magacaabo ra'iisul wasaare fuliyo waxyaabaha ka soo baxay shirka iyo in beesha caalamka ay marqaati ka noqoto shirka iyagoo madaxweynaha ku eedeeyay in uu markaasi heshiisyo hore uga baxay dhinaca kalena xog ku saabsan wasiirada Fiqi iyo Saabir oo qarka u saaran inay iscasilaan kadib markii madaxweyne Qoorqoor uu isku dhiibay madaxweyne Farmaajo laba kamid ah wasiirada ugu miisaanka culus maamulka Galmudug ayaa qarka u saaran inay iscasilaan iyaga oo ka careysan in madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaariyo Qoorqoor uu isku dhiibay madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo Qoorqoor ayaa sameeyay arrin lama filaan ah kadib markii uu furay shirka Dhuusamareeb 3 oo ay ka maqan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland waxaana cadaatay sida madaxweyne Farmaajo uu ogolaaday muddo kororsi sida aan xoga uga helnay ila wareedyo lagu kalsoon yahay wasiirka amniga Galmudug xildhibaan Axmed Macallin Fiqi iyo wasiirka dekedaha iyo kalluumaysiga xildhibaan Saabir Nuur Shooriye ayaa waxaan la aqbali karin waxay ku tilmaameen tallaabada uu qaaday Mr. Qoorqoor Saabir iyo Fiqi oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ee sida weyn u mucaaradsan dawladda Farmaajo ayaa sida aan xogta ku helnay u sheegay Qoorqoor inuu ka baxay ballantii ay wada galeen markii ay ku biireen maamulkiisa
taasi oo ahayd in galmudug ay noqoto dhexdhexaad. wixii qoorqoor uu sameeyay lama filaan ayay noqotay, marna lagama filaynin hoggaan sidaan u liita iyo inuu sidaan fudud ku aqbali karo muddo kororsi Soomaaliya ee ku hogaamin karta dagaal sokeeye. waxaa sidaasi yiri ilwareedyo ku dhowdhow labada xildhibaan oo nala hadlay. wararka ayaa intaas ku daraya in Fiqi iyo Saabir ay rumaysan yihiin in qoorqoor uu saacado gudahood dhulka ku tuuray sumcaddii iyo sharaftii ay galmudug wax ka yar bil ay ku heshay isku keenida dhinacyada kala duwan ee Soomaaliya ee muujisay inay noqon karto mid dalka badbaadisa. xogta aan helay waxay sidoo kale sheegaysaa in Saabir iyo Fiqi ay rumaysnaayeen in qoorqoor uu ahaa awoodda kaliya ee muuqata ee beesha hawiye ku matalayso loolanka siyaasadeed ee dalka ka socda, balse taasi uu meesha hadda ka saaray. arrinta la yaab kale ayaa sidoo kale ah in qoorqoor uu muddo kororsiga ogolaaday ayada oo aanay jirin wax muuqda oo uu ku bedeshay. wararka ayaa sheegaya in hadda ay socdaan wadahadallo u dhexeeya qoorqoor, Saabir iyo Fiqi, iyada oo la isku dayayo in la soxo qaladkii uu qoorqoor sameeyey, lamana oga sida uu aqbali doono madaxweyne qoorqoor. labadan xildhibaan ayaa sida aan ogaanay dalbanaya in qoorqoor ka laabto mowqifkiisii hore islamarkaana uu soxo qaladkii uu habeen ka horgalay. waxyaabaha la doonayo in qoorqoor uu sameeyo ayaa waxaa ka mid ah in la joojiyo in shirka dhuusamareeb 3 laga soo saaro go'aan diyaarsan oo la rumaysan yahay in muddo kororsi lagu siinayo madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo. waxaa sidoo kale la soo jeediyey in qoorqoor aado Garowe iyo Kismaayo islamarkaana uu la soo hadlo Saciidani iyo Axmed Madoobe kuna qanciyo inay shirka yimaadaan. haddii qoorqoor uu diido inuu sidaas sameeyo ayaa waxaa la filayaa in labadan xildhibaan ay iska casilaan golaha wasiirada galmudug, maadaama aysan diyaar u ahayn inay qayb ka sii ahaadaan maamul hoos tagaya madaxweyne Farmaajo oo ay si aad u mucaaradsan yihiin. milkiilaha Hotel Elite waxa uu shaaciyay sababtii loo beegsaday hotelkiisa. milkiilaha Hotel Elite xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur oo maalin ka hor lagu qaaday weerar toos ah iyo qarax xooggan ayaa ka hadlay sababtii ay ka dambeysay in la weeraro hotelkiisa. xildhibaan Cabdullaahi oo arrintaasi ka hadlayay ayaa waxa uu markaasi sheegay in sababta ugu weyn ee loo beegsaday ay tahay inuusan bixin lacag baad ah oo ay weydiisteen al-shabaab. xildhibaanka ayaa arrinkaasi si dadban uga sheegay waraysi uu bixinayay, isagoo xusay inaysan marnaba niyad jebin doonin weerarada argagixisada oo ujeedkooda ugu weyn yahay niyad jebinta horumarka ummadda Soomaaliyeed. milkiilaha Elite Hotel ayaa carabaabay in dad ku dhowdhow ay dhowr jeer markaasi kula taliyeen inuu bixiyo lacagta ee al-shabaab ay ku sheegtaan zakawaadka oo la fahamsan yahay inay bixiyaan badanaa ganacsatada Soomaaliyeed, balse uu sidaasi uga dhaga adeegay. Cabdullaahi ayaa sheegay inaysan marnaba suurtagal noqon doonin in lacag baad ah uu siiyo kooxda nabaddiidka ah, taasi oo qayb ka noqonaysa dhibaatada shacabka Soomaaliyeed. waa sida uu hadalka u dhigay. madasha xisbiyada qaranna waxa ay war culus ka soo saartay doorashooyinka dalka ee 2020-2021. madasha xisbiyada qaran ayaa waxay soo saareen war ay kaga hadlayaan doorashada dalka ka dhacaysa ee la filayo inay go'aanada shirka dhuusamareeb 3 ku xiran tahay nuuceeda. qoraal ay soo saareen xalayto ayay madashu waxay kaga hadleen inaysan ogeyn doorashada Soomaaliya islamarkaana mid wada ogol ah loo baahan yahay inay noqoto doorashada Soomaaliya. waxay madashu rajo ka qabtaa doorashada Soomaaliya in lagu saleeyo doorka ay qabaan iyo afkaartooda in lagu muujiyo doorashadaas oo la filayo in la isku raaco inay noqoto mid dadban, maadaama waqtigan dalka aysan ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah. dhinaca kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay wacad ku martay inay tallaabo cad ka qaadayso xadgudubka Taiwan ee Soomaaliya. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale war ka soo saartay xiriirka Taiwan iyo Somaliland oo horseeday in wakiilo isweydaarsadaan islamarkaana maalinnimadii Isniinta ay xafiis diblomaasiyadeed Taiwan ka furto Hargeysa. war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo ku qorna luqadda Englishka ayaa si weyn loogu cambaareeyay dhaqdhaqaaqa Taiwan ee Somaliland, kaasi oo xadgudub ku ah madax bannaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. dowladda ayaa meel adag iska taagtay heshiiska Taiwan iyo Somaliland ee horseeday inay xafiiskaasi ka furato Hargeysa, iyada oo ula dhaqmaysa sida dal madax bannaan xil uu caalamku aqoonsan yahay inay qayb ka tahay Soomaaliya. bayaankaas ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa waxaa si cad loogu baaqay Taiwan inay joojiso faragelinta ay ku wado Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay qaadayso tallaabooyin ay uga hortagayso dhaqdhaqaaq kasta oo wax lagu yeelayo midnimada Soomaaliya, midaasi oo ay qayb ka tahay midda ay wado Taiwan. ugu dambeyntiina faahfaahino ayaa waxay ka soo baxayaan qarax dad badan ay ku waxyeeloobeen oo ka dhacay magaalada Beledweyne. 5 qofood ayaa ku geeriyootay, 10 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii
qarax miino oo ka dhacay albaabka garoonka kubadda cagta ee ku yaala magaalada Beledweyne uu saameyn ku yeeshay dadkaasi geeriyooday. garoonka Laqanya ayaa xilliga uu falkaas ka dhacay waxa ka socotay ciyaar kubadda cagta oo ay qayb ka ahayd tartan loo qabtay naadiyada kala duwan ee ka dhisan magaaladaasi. saraakiisha ammaanka Hirshabelle ayaa dhacdadaas ku eedeeyay al-shabaab oo joogitaan badan ku leh deegaanada hoos yimaada gobolka isla markaana dhowr jeer ka fuliyay ficilo ammaanka ka soo horjeeda. muuqaalo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa waxay muujinayaan in markii uu qarax u dhacay ay dadweynaha kala carareen isla markaana uu hakad ku yimid kulankii socday. habeen ka hor ayay ahayd markii al-shabaab ay caasimadda Hirshabelle ee Jowhar ay ku toogteen wasiirkii beeraha ahaana mudane ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabelle oo lagu magacaabi jiray Cabduqaadir Abuukar Maxamuud. saaxiibada aynu jecelnahay wararkan wararkooda xigeentan mar kale ku kulmi doono sidaas iyo nabad.